isla magaalada Muqdisho maanta waxa ka dhacay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaaladaasi iyo waliba madaxweynaha maamul goboleedka Mareeg State Dayib Maxamuud Sheekh oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho waxaana kulankaasi lagaga dhawaaqay isbahaysiga madaxa bannaan ee loo bixiyay turxaan bixinta Soomaaliya wariyahayaga Maxamed Maxamuud Timcade ayaa inoo haya faahfaahinta warkaasi munaasabadan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu magacaabay isbahaysiga madaxa bannaan ee turxaan bixinta Soomaaliya oo lagu magac daray isbahaysiga Efiso kaas oo la sheegay inuu ku shaqeyn doono inuu ka hortago in xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya loo soo xulayo ay ka mid noqdaan hogaamiye kooxeedii ka jiray Soomaaliya iyo sidoo kale dad ka soo qayb galay dhibaatooyinkii 22 sano ka dhacay Soomaaliya munaasabada ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin aqoon-yahano madaxweynayaal maamul goboleedyo ka socday iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay TV-ga Universal iyadoo dhammaan madaxdii halkaas ka hadashay ay isku raaceen in loo baahan yahay in la helo xildhibaano wanaagsan oo aan ka mid ahayn kuwii ka qayb galay dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya 22 sano ugu horreyn ayaa halkaas waxa ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa kaas oo sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo isbahaysiga la dhisay isla markaana uu ka codsanayo dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya in ay qaadato talada isbahaysigan ay soo bandhigayso oo ku aadan in xulitaanka xildhibaanada baarlamaanka cusub laga fiirsado madaxweynaha maamul goboleedka Mareeg State isla markaana ah agaasimaha guud ee TV-ga Universal ee North America Dayib Sheekh Axmed oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xulo xildhibaano muhiim ah isla markaana aqoon leh kana soo baxay jaamacado ay wax badan ugu qabtaan dalka Soomaaliya waxaana Dayib uu sidoo kale sheegay in haddii xildhibaano wanaagsan la keeno la heli karo madaxweyne wanaagsan oo ay soo doortaan inaan u baaqo walaalahayga Soomaaliyeed ee soo xula doona xildhibaanada inay xushaan cid walba ciday ka karti badan tahay ka Soomaalisan tahay ka wadanisan tahay ka aqoon-yahansan tahay runtii waxaan aaminsanahay haddii la helo xildhibaano ka madax bannaan maxaa la yidhaahdaa waxyaabahaas oo dhan ee ku sifoobay wanaagga waxaan qabaa in la heli karo madaxweyne wanaagsan marka waxaan ka codsanayaa walaalahayga inay cid walba soo xulato ninka ugu wanaagsan ay soo fiirin ninkan waa oday waa kaaba qabiil waa intaa soo socday laakiin ay xushaan cid walba ciday ka wanaagsan tahay ka wadanisan tahay gabagabadii munaasabada ayaa ujeedada isbahaysigan loogu dhawaaqay waxaa saxaafadda u akhriyay isla markaana warbixin kooban saxaafadda ka siiyay Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha isbahaysiga madaxa bannaan ee turxaan bixinta Soomaaliya ee Efiso kaas oo sharaxay ujeedada ay u dhiseen isbahaysigan iyo sidoo kale waxa ay qaban doonaan maanta waxaa meeshan looga dhawaaqay isbahaysiga madax bannaan ee turxaan bixinta Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya laba arrimood baa u ah salwa waxay tahay inay adkayso awoodda odayaasha dhaqanku ay u leeyihiin in ay ku jagreeyaan amba ay iska ilaaliyaan dad dhagarqabayaal ah in ay liiska ku soo baxaan soo aadaya baarlamaanka Soomaaliya waqtigan laba taariikhi bay arrintan ay leedahay midka koowaad waa markii ugu horeysay 1968 laga bilaabo waa markii ugu horeysay siyaasad furan wadanka dhexdiisa ay ka dhacayso magaalada Muqdisho wax garad odayaal dhaqan haween dhalinyaro oo dhan ay wada joogto marka intoodaas waxaan isleenahay maanta amba imagaati kuma xareysna amba meel cafta la yiraahdo ma joogaan amba magaalo kale ma joogaan magaaladooda caasimadooda ay joogaan waxay awood u leeyihiin collectively inay inta wada fiiriyaan ay magacyo run ah oo wanaagsan ee wadankan wax u tari karaya inay soo hormariyaan isbahaysiyada arrimaha bulshada iyo kuwa siyaasadda ka shaqeeya oo inta badan lagu magacaabo magaalada Muqdisho isla markaana looga dhawaaqo ayaan la ogaan karin waxa ay ku soo kordhin karaan siyaasadda Soomaaliya oo iyada marba mar ka dambeysay